Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkanina waxa uu laba u yahay ama muuqaalkii labaad uu yahay taxanihii applicationada ugu khatarsan dhanka editing-ga. Muuqaalkan waxa aan kusoo qaadan doonaa markaasi ama aan markaasi ku gorfayn doonaa applicationka labaad ee markaasi dhanka design-ka iyo sawir qurxinta iyo markaasi editing-ga ugu wanaagsan. Applicationkan waxa weeyaan PixArt. PixArt badankeenu wayna naqaanaa, dad fara badanina markaasi waa yaqaanaan, balse laakiin qaabab aad iyo aad markaasi u wanaagsan ama xeelado markaasi loo adeegsado ayuu leeyahay oo qofka markaasi si fiican u yaqaana ama adeegsigiisa aad ugu dheereeya waxa uu ku sameynayaa dhisaano markaasi aad iyo aad u qurux badan oo markaasi u dhigma nooca lagu sameeyo Photoshop-ka ama Illustrator-ka ama computer lagu sameeyo oo kale ayuu u dhigmaa. Okay, applicationkan waxa aan guud mari doonaa ama xogaa gorfayn aan ku sameyn doonaa qaabka uu shaqeynayo, sida loo isticmaalayo, waxyaabaha iyo featureska markaasi uu leeyahay. Applicationkan PixArt muuqaalo hore ama qaabab hore oo markaasi lagu shaqeeyo ama muuqaalo hore waan ka sameeyay waa ay ku jiraan xagga hoose in soo dhigi doonaa waana daawan doontaa. Sidoo kale channelka gudihiisa ay dib ugu noqon doontaa, halkaas ayaad markaasi ka soo eegi doontaa. PixArt waa kan applicationka PixArt waa kan. PixArt inta badan waxa uu ku shaqeeyaa connection, sidoo kale ama internet baan ujeedaa ama data inta baad ka isticmaalayso, sidoo kalena offline waad u adeegsan kartaa, balse laakiin adeegyada qaarkood markaad adeegsanayso inaad online u baahato ayaa suurtagal ah ama inaad khad u baahato ayaa suurtagal ah. Okay, hadda offline iyo online labadaba waan eegi doonaa. Hadda offline-ka ayaan ku horeyn doonaa. Applicationkan markaad soo gasho waxa aad ku habeyn kartaa ama aad ku edit gareyn kartaa waxa weeyaan sawirada, sidoo kale muuqaalada waad ku edit gareyn kartaa, sidoo kale loogooyinka waad ku sameyn kartaa. Inkastoo ay markaasi tayadooda hooseyso marka loogo lagu sameynayo oo waxyaabo ka dhiman ay jiraan oo applicationkii hore aynu kusoo sameynin loogada ama qaabka aynu kusoo sharaxnay ee Pixlab aanu qaabka u shaqeynin oo 3D iyo waxyaabahaas oo kale ma laha. Okay, sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa collages ama markaasi sawirada la iska rabgeliyo freestyle, waxyaabahaas oo dhan ku sameyn kartaa. Sidoo kale waxa uu leeyahay templates ama markaasi sawiro diyaarsan oo markaa inaad wax ka bedesho u baahan. Sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa cabiro adigu markaasi aad sameysato oo nooc ay doonayaan markaasi ha ahaadaan. Okay, hadda sawir bad markaasi halkan aan ka eegi doonaa ama cabir baan qaadan doonaa oo markaasi offline-ka aynu ku eegno. Halkan waxaad ku dul dhufanaysaa markaasi big canvas ama markaasi inaad cabir qaadato adigu markaasi kuu gaara. Hadda haddii aan kan sameeyo ama kan aan qaatoba tusaale ahaan kan laftiisaba haddii aan qaato dhankan aan u rogo dan aan soo qabto waad arkaya sawirkii. Okay, sawirkan qaabkan marka uu yahay midabka aad ka bedeli kartaa, sidoo kale qoraallo waad ku sameyn kartaa, design qurux badan waad ku sameyn kartaa, waxyaabahaas oo dhan baad markaasi ku sameyn kartaa. Okay, hadda haddii aan qaybtan ku dhufto oo colorka midabka ku dhufto aan qaybtan colorka markaasi aan doonayo inaan ka bedelo, halkan aan ka bedelaya waa kan. Halkan markaasi ku dul dhufanaya oo midabkii nooca aan doonayo aan markaasi ka dhigaya. Haddii aan ka dhigo sidoo kale nooca aan markaasi nooc qurux badan baan ka dhigi doonaa. Haddii aan kan ka dhigo sidaan aan u soo yar wado kan ka dhigo waad arkay qaabka uu ekaanayo. Haddii markaasi aad ka sameynayso markaasi opacity ka yareynayso waad ka yareyn kartaa. Sidoo kale waxaad markaasi ku dul sameyn kartaa waxyaabo aad iyo aad markaasi u tiro badan. Hadda haddii aan ku dul dhufto kan oo midabka yar soo qaato dan aan qaybtan ka doorto brushkaasina aan markaasi ka dhigo sidan brushka aan saa idhaahdo qaabka uu yahay, dan halkan aan ku dul dhufanaya. Sorry layer banaan baad marka hore u dooranaysaa brushka. Okay, layerkan badan baan dooranaya, dan brushkii baan san odhanaya. Layerka maadaama uu ka yahay transform baan odhanaya, waan soo yar weyneynayaa. Qaab markaasi waxaad ku sameyn kartaa markaasi gradient ahaan oo kala qaabka haddii imika aan u sameeyo dan aan save idhaahdo waad arkaya qaabka markaasi uu ekaanayo. Okay, halkan marka aad ku qaybtan joogto halkaasaad ku dul dhufan doontaa falaadha waxaad odhanaysaa edit image, waad sii edit gareynaysaa. Qaybta caadiga ahayd ee PixArt ama tuulasha badan ay ku jireen ayaa uu ku gudbinaya, waa qaybtan weeyaan. qaybtaasina waxay noqonaysaa markaasi transparent ama waxay noqon bilaa background weyn, qayb banaan qaybna background bay markaasi leedahay. Okay, waxaan sameynaa markaa sawir kale ayaan soo qaadanaa si aan usoo dhex gelino
halkan ayaan ku dul dhufanayaa oo offline ahaan bad markaa u adeegsanaysaa hadda oo kaagama baahna markaasi online ama khad kaagama baahna. Okay, sawir baan soo qaadayaa, sawir baan halkan kasoo qaadi doonaa, sawir baan qaybtan kasoo qaadayaa. Okay, markaan halkan ku dhufto sawir baan soo qaadi doonaa, tusaale ahaan kan baa ku dul dhufo, sanaad odhanaysaa sidaa marka uu yahay waxa aad ku samayn kartaa blend wax loo yaqaano oo qaabkaas ayuu markaasi noqonayaa. oo haddii aan saa ku dhufto ama qaabka aan idhaahdo waad arkay sawirkii aad iyo aad buu qurux badnaaday oo qaabkaasi ayuu markaasi u ekaaday. Okay, save baan odhanayaa, then waxa aan ku dul sameynayaa qoraal baan ku dul samayn doonaa, qoraal baan halkan ku dul samayn doonaa, waxaan ku dul qori doonaa Henry Ford Cars baan ku dul qori doonaa maadaama ninkaasi uu sameeyay gaarigan ama shirkadaas ay iska leedahay Ford la yiraahdo. qaabkaasi ayaad markaasi u samayn doontaa, Cars ayaan halkan ku qori doonaa, then save baan odhanayaa. qaabkaas u samayn doontaa sawirkaada doonaysa inaad soo dhigto qaabkana dhanka yeesta yara jiidi doontaa, qaabkaas uu noqonaya. sidoo kale iyadana PixArt ama application kani waxa uu leeyahay fontiyo aad iyo aad u qurux badan, sidoo kale qaar adigu aad markaasi iska u soo gashanayso uu leeyahay oo my fonts halka ku qoran intaad ku dhufanaysaa add fonts baad ku dhufanaysaa hadii doonaysa inaad kasoo darto qaab premium oo isagu iska leeyahay uu leeyahay oo markaasi aad adeegsan karto. imika haddii aan kaa ku dul dhufto ama kaa aan doorto waan eegi doonaa. sawiradan qaarkood waxay ku shaqeynayaan internet, qaarna markaasi internet kuma shaqeynayaan. hadda mid kamid ah kuwanan dooran doonaa, kaasaan doortay, halkaan saa u dhigayaa, bartankan ku hagaajinayaa. sidoo kale midabka waan ka bedeli karaa, madow baan ka dhigi doonaa, noocyadaas kale aan ka dhigi karaa. sidoo kale gradient baan ka dhigi karaa oo markaasi qaabkaasuu noqonaya. haddii aan huruud ka dhigo, xagga sarena markaasi aan ka dhigo buluug, xagga sarena buluug aan ka dhigo, xaggana waxaad ka dhigaysaa buluug. qaabkaasi ay markaasi u ekaanay. stroke baad u samayn kartaa, cadaan baad ka dhigi kartaa midabka, sidoo kale waxaad u samayn kartaa hard shape baad u samayn kartaa, waxyaabahaas oo dhan. oo sidoo kale blending baad iska laftiisa ku samayn kartaa oo qaabkaasi ayuu ekaanaya qaab aad iyo aad markaasi u qurux badan. waxyaaba aad iyo aad u tiro badan buu leeyahay oo markaasi aad ku samayn karto. lighten haddii aan idhaahdo qaabkaas u ekaanaya qaab aad iyo aad markaasi u qurux badan. sawirada inta badan design aad iyo aad qurux badan baad u samayn kartaa, size-ka aad doonayso, waxyaabahaas oo dhan buu ku qabanaya. sidoo kale stickers baad qaybtan kaga soo dari doontaa, kaga soo dari kartaa. haddii aan internetka furo ama daatada aan furo waxa aan markaasi eegi doonaa qaybta online-ka. haddii aan halkan ku dhufto adiga arkaya retrieve baan odhanaya, stickerada qaybtan ayuu kasoo saaraya, nooca aad doonayso ayaad ka dhigaysaa 2020. haddii aan halkan ku dhufto hadda stickerkan waan adeegsan karaa bay ka dhigan tahay oo waad arkaya stickera aad iyo aad u qurux badan, sawirro aad iyo aad u qurux badan, waxyaabahaas oo dhan ayuu markaasi kugu shaqeynaya. Okay, sidoo kale sawirkan isaga laftiisa blend mad ka dhigi kartaa oo noocaas u ekaanaya qaab aad iyo aad u qurux badan. sidoo kale waxaad u samayn kartaa shape ama hard ayaad u samayn kartaa, waxyaabahaas oo dhan buu kugu shaqeynaya. hadda haddii markaasi aanu eegno adeegyada kale markaasi uu leeyahay, sawirkan aan soo qaadi doonaa, isagaas sawirkan laftiisa hadda meesha inoo yeelan ayaan soo qaadi doonaa. markaasi qaybtan aan ku dul dhufanayaa, pictures baan ku dhufanayaa, pictures markaan ku dhufto markaasi sida backgroundka looga jaro application-kani waxa uu leeyahay qaybta backgroundka jarid ama remove background buu leeyahay. application-ka hore Pixel 11 kasoo sheekanay sawirada backgroundka kagama jiri kartid. halkan waxa aan ku dhufan doonaa cut out, halka ay ku qoran tahay ku dul dhufanayaa cut out. markaan ku dul dhufto halkan waan iska noqonaya, markaasi waxaan sameynayaa in aan qaabkan u jaro. haddii aan doorto halkan oo markaasi idhaahdo qaabkaasaan uga jarayaa, intaba markaasi waa noqonaya qaabka aad uga jarayso. haddii aan sidaa idhaahdo adiga arkaya qaabka intaa u go'ayo markaasi go'ayso oo sawirkii oo khaliya ku soo haraya markaad halka ku dul dhufato. sidoo kale qaab kale waad u samayn kartaa. haddii qaabtan back ka idhaahdo tan aan saa ugu dul dhufto cut out-kii aan ku noqdo, waxaan samayn karaa in aan ku dhufto person, halka person ay ku qoran tahay aan ku dhufto oo qofka kaliya markaasi uu ii soo reebo oo background-ka markaasi inta kale waa uu ka jaraya ama markaasi waa uu ka reebaya. waad arkaya qaabkaasi ayuu isagu si automatically kaaga reebaya. haddii aan san idhaahdo hadda sanaan odhanayaa, qaabkanaan markaasi odhanayaa. sidoo kale waxaan sameynayaa blending baan sameynayaa,
qaabkaas aan u sameynayaa overlay qaabkaas waa kan sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa inaad kala masaxdo oo qaybtan hoose aad ka tirtirto qaybtan hadda waan ka masaxi doonaa intaas saraan deynaya kurkiyo khaliyata ayaan soo reebay qaabkaasi ayuu markaasi u shaqeynayaa waa qaab aad iyo aad u qurux badan PixArt adeegyo aad iyo aad u tiro badan ayuu leeyahay qaabab aad iyo aad markaasi u fara badan oo la adeegsado loo isticmaala ayaa markaasi uu leeyahay sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa effects ayaa uu leeyahay oo markaasi nooca aad doonayso aad ka dhigayso aad iyo aad u qurux badan waxa uu leeyahay markaasi filter fx canvas sketch banner waxyaabahaas oo dhan baad markaasi u adeegsan kartaa oo sawirka caadiga ah ama sawirka markaasi aad gasho aad kamarada ku gasho si qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan ayaad ugu edit-gareyn kartaa sidoo kale waxa uu leeyahay qaybtan maskiska loo yaqaano waxyaabahaas oo dhan ayuu markaasi ka anfacaya oo markaasi aad ku shaqeyn kartaa PixArt waa application aad iyo aad u fiican waa applicationka ugu horeeya ama applicationka koobaad aan idhaahde loo adeegsado dhanka markaasi editingka inta badanna dadku waa yaqaanaan balse laakiin xeelado iyo qaabab loo kala adeegsado ayaa jira qaababkana haddii aad barato aad iyo aad markaasi ugu dheereynaysaa dhisayna aad iyo aad u qurux badanna aad markaasi ku sameyn kartaa applicationkani waa application tayadiisu wanaagsan tahay waa application waxyaabo aad iyo aad u tiro badan aad ku sameyn karto sawiradaada aad ku sameyn karto qoraal aad ku sameyn karto waxyaabahaas oo dhan ayaad ku sameyn kartaa foontiyo aad iyo aad u qurux badanna waad ku shuban kartaa oo adigu markaasi aad soo xulatay applicationkani waa application tayo leh waa application aad dhisayna qurux badan aad markaasi ku sameyn karto waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday applicationkan markaasi si wanaagsan ama sidii aad rabtay markaasi aad u adeegsan doonto applicationkan waxa aan soo dhigi doonaa qaybta hoose description-ka isagoo free oo markaasi premium oon markaasi lahayn wax xayisiisa ama wax markaasi advertisement iyo waxyaabahaas oo dhan aan lahayn oo nadiif ah in halkaa kusoo dhigi doonaa halkaa ayaad markaasi kala degi doontaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doonto designadii waxyaabihii aadka quruxda badnaa ee doonaysa inaad samaysana aad ku sameyn doonto tan iyo muuqaalka dambe intaan iskugu iman doono wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.